laakiin waxaan bulshada u sheegaynaa inuu noqday ninkii ugu liitay golaha master hero duqa degmadu waxaanu rajaynaynaa in annagoo xildhibaanada ah aanu baro saabka gobolka dacwad u gudbino xildhibaan maxamuud axmed shimbir oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay hotel Daalo ee magaalada Burco ayaa dhaliilo culus u soo jeediyay maayarka degmada Burco Cabdirasaaq Hiro oo ku tilmaamay maayarkii ugu waxqabadka liitay ee soo maray magaalada Burco xildhibaanku waxa uu sidoo kale tilmaamay in kalfadhiga soo socda ee golaha deegaanka degmada Burco uu yeelanayo ay xilka kaga qaadi doonaan maayarka degmada Burco sidoo kale xildhibaan maxamuud axmed shimbir waxa uu tilmaamay in dacwad ka dhan ah maayarka degmada Burco ay u gudbin doonaan barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo xildhibaanka waxa hadaladiisa kamid ahaa sida tan golaha iyaga deegaanka ee degmada Burco sida ay wada ogtihiin waxaanu nimi bishii shanaad ee 22 hadda waxaanu maraynaa muddo laba sano wax yar ka dhiman yihiin cabashada bulshada nagaga imanaysa ma aha mid golaha deegaanku wada leeyahay waa mid u gaara duqa degmada oo aanu ku imaamadnay oo aanu saaray haddaanu ahayn asxaabtii waliba ka soo baxday ee laga doortay isbahaysiga mucaaradka umaanaan dooran dee aqoon badan baanu isugu keenay dadku markaa isu yimaadee golahu cusub yahay aqoon badan baa isugu dhiman dad si cusub baanu ahayn had iyo jeer saxaafaduna waxbay boonboonisaa duqayagaasi marka uu golayaasha ka hadlaayo iyo marka uu sheekaynayo wuxuu odhan jiray waxa halays u ahayd waxaana soo kiciyey dareen damacnama keenin dareen shacab baana keenay ayuu odhan jiray markaa hadalladii wanaagsaneyd iyo lagjaradii uu akhriyi jiray ee uu golayaasha iyo saxaafadda u soo bandhigi jiray ayaabaanu silay ninkan idinku mudnaa laakiin waxaan bulshada u sheegaynaa inuu noqday ninkii ugu liitay golaha master hero duqa degmadu waxaanu rajaynaynaa oo bulshada u sheegaynaa waxna waa gole oo qorshayaal sanadeedkay soo saaraan waxna waa fulinta ayaa hawl wadista leh 7 kal fadhi baanu fadhiisanay oo aanu idiin soo shaacinay oo aanu bajajkayga idiin soo dhignay qorshahii 7 kal fadhi aanu qabanaynay waxba kama fulin qorshe kasta oo aanu soo bandhigno duqu ma fuliyo caqabadana koobaad ee maanta ilaa xalay baraha bulshada waa ogeydeeno warar baa la wareejinayay muuqaalkayga iyo codkayga iyo sawirkayga ku jiray waxa qoraalkaas falcelinta ugu badan ahayd maxaa golihiina ugu dhamaysan weydeen ilaa gole deegaan oo la doortay baa tahay shacabka iyo bulshada isu maqashiinaysa taa waxa aan u sheegayaa bulshada reer Burco kalfadhiga iyagii 8aad waxa uu bilaabmay 15 bishan koowaad ee sanadkan 23 kalfadhigii 2 maalmood markii uu soconayay waa la joojiyay wuu diiday duqii degmadu inuu soo fadhiisto golihii xalaytana wax kan ogaanay inuu Hargeysa isaga baxay ninkii nala ballansanaa inaanu kalfadhigii ka hadalno sanad baa dhamaaday maadaama sanad dhamaadayna isbarbardhigii dakhliga iyo kharashka iyo isla xisaabtankii ayaanu doonaynay inaanu bulshadana la wadaagno golaha iyaguna ku xisaabtano waanu ku kari weyn الآن ما أنتوا أفريلا تنكي بيشة تهاي إلا يشني تبنكي بيشة مدة تبنك عشية ما كويه تبنك عشاء كالفردي وتاجي هاي وانو كور وريجي إن أنو قلها يجي كوا ذا هذا الله ويسور الجل ويدي وحنا نرجعني إن أنا جو حلبنا ده أنو برا ساب كجوبل كدعوة وجود بينه سك الفردي وقف صومه مركا أنت أنا دلوا وداجية وأنت ومدنا waxaan leeyahay wixii dhexdeeda ka jira ee anaga dhexdeeda ku dhamaysanayna laakiin eeda golaha wada saaraysan nagaga cabanaysaan inaan golaha wada lahayn ee duqa degmada aan u imaamadnay uu leeyahay in baan bulshada la wadaagina waan mahadsantiin ma aha arrimo shakhsiya waxa ay soo kiciyay waxay ahayd maalintii aanu halkan nimi December bishii 22 dhamaadkiisii bay ahayd muddo sanada ka dambeysay 6 bilood baanu golaha joognay wax lagaaga gar helaya ayaa jira dadku marka uu cusub yahay waa nin gamaan yaqaan maqasha waa gaasa bixiyaan waxaan uga baahnayn oo nalagu aqli celiyay war inta inanku ama uu noqonayo ka sheegaysaan ama uu noqon ka baaqsanayo
u kaadiyo oo lugaha qabanin bal la shaqeeya marka muddada sanadka waxaanu ku aamusnayn inaanu toosino inaanu la shaqeyno waanu toosilaayay marka waxay gaadhay waqtigii laga tuuri lahaa laakiin annaga waxaan nagu caqabada golo deegaan xeer baan isku maamulnaa golo sharci oo la soo doortay baanu nahay waxaan nagu caqabada wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradiisu waxay hakiyeen kala fadhiyadii iyo mooshinadii marka waqtigii iyaga oo danaynaya in aan ummaddu ku soo yaacin oo aan marba qof markiiba laga ridin laakiin maanta waxaanu leenahay waxay gaadhay waqtigii cid walba la hubsaday qof waliba wuxuu yahay uu muuqday marka iyagana waxaanu ka codsanaynaa si aanan dadka isugu sii dulqabqabsanin in ay noo furaan kala fadhiyadii ma ihi anigu nin maanta dhabarka la soo taabtay laakiin waxa ay wada dareenkii bulshada isoo dooratay ee degmada Burco waxaan ka mid ahaa ragga ku ilaalinaya kursiga waxaanu markii horeba ku dooranay kulmiye isagoo joogo oo maamulkii iyo dawladda wax fargelin anagu ma lahayn markii hore aanu dooranayna imikana wax fargelin anagu ma laha uu naga madax banaayay laakiin shakhsiyadayada iyo dareenka iyaga iyo hamiga wixii naloo soo doortay inaanu ka jawaabno oo bulshada ninkii aanu dooray hadduu hanan waayay ninka wanaagsan aanu raadino ayaa keentay dhinaca kale mar aan weydiinay xildhibaan maxamuud axmed shimbir inuu leeyahay han ah inuu isku soo taago maayarka degmada Burco haddii la furo kalfadhiga golaha deegaanka degmada Burco waxa uu ku jawaabay sidatan waxaan halkan anigu ka ballan qaadayaa oo iga go'an bedelada duqa degmada ee maanta jooga balan A iyo balan B anigu waxaan ahay nin damac siyaasadeed leh oo doonayo isuna filaya inuu hanan karayo oo u dhaamayo Burco haddii taydu suuro gali weydana nin kale oo aan isaga ahayn baan ku dhisaya laakiin lama dambe iyo wareeg dambe oo maanta jira ma jiro saasana idin ballan qaadaya xildhibaan su'aasha labaad aan ku weydiinayo waxa weeye dacwadaha sheegtay inaad barasaabka gobolka Tuur aad u gudbinaysaan idinko ah golaha deegaanka degmada Burco ma waxay ku saabsan tahay cashuurihii uu maayir kordhiyay ee dhawaan dadweynaha magaalada Burco aad kuga qeyriyeen bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay cabashada aan doonayno inaan u gudbino barasaabka gobolka Togdheer oo ah madaxa ugu sareeya magaalada ama gobolka waxa weeyaan kalfadhigii oo uu qabsoomila golihii aanu ku xisaabtami lahayn maalin walba uu iska tagay kalfadhigii oo noo furan ayaa iska tagay waxba uu naga dhageysanayay markaas si kalfadhigii u furmo oo dawladda dhexe ay ugu khasabto inuu soo fadhiisto ayaan u gudbinaynaa dacwadda laakiin taariifada haddaan kaaga warramo taariifadu waxay ahayd waxaanu isla eegnay 40% baanu kordhinay shaarca laga sheegay laakiin waxa jirta dhaliilo kale oo halka lafteeda aanan isku ogeyn oo aanu kaga wada hadli doono golaha iyo kalfadhigu markuu yimaado maxay kuwaas oo ku waxa weeye darajadii guryaha halkii aanu iskaga ogeyn in 40% taariifada ama ardiyada lagu kordhiyo waxa la kordhiyay darajadii guryaha gurigii siida ahaaba wuxuu guuray darajana wuu guuray 40% waa la kordhiyay waxa jira guryaha imka hodan ama khasabka ama tuurta ku yaala oo guryahaasa oo 500 kun laga doonayo markii horena 240 kun laga qaadi jiray marka taa lafteedu dareenaan la qabin bay ahayd isku manaanan ogeyn maayir miisaaniyada aanu ku ansixinay kalfadhiga waa 45 bilyan wax allaala iyo wax iska bedelay ma jiro taariifada iyo miisaaniyadana waxa la horeysiin jiray miisaaniyada kadib markii ay soo bixi weyday qorshihii iyo dhaqaalihii aan ugu tala galnay ayaa waxa ay noqotay in aanu kordhino taariifadii iyadoo taariifadu marka horeba aad u hooseysay cabashooyinka maalinta ka dambeysay soo taraysa ee ka ibanaysa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo bulshada magaalada Burco ee ay ka qabaan hogaaminta maayarka degmada Burco ayaa soo taraysa Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah ee Cable TV Burco.